Donald Trump waa nin siyaasi caan ah oo ka soo jeeda dalka Mareykanka, wuxuu si weyn u saameeyay siyaasadda dalkaasi iyo tan dunidaba. Waa nin adag dhanka siyaasadda maadaama ay reer galbeedku ay aad uga baqaan. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa xilalkii uu soo qabtay Donald Trump iyo sidoo kaleeto doorashadiisa kadib saameynta ay ku yeelan doonto adduunka, sida dagaalka bariga dhexe ka socda iyo kan Ukraine, iyo sidoo kaleeto dagaalka u dhexeeyo Shiinaha iyo Taiwan. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. inta aynan guda gelin muuqaalkeena maanta, haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir, haddii aad horey nala joogtayna fadlan muuqaalka like saar oo la wadaaga asxaabtaada. ku soo dhawaada mar kale muuqaalkeena maanta. Donald Trump magaciisa dhammaystiran waa Donald John Trump. Wuxuu dhashay 14 Juun 1946. Wuxuu ku dhashay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Trump wuxuu noqday madaxweynihii 45aad ee dalka Mareykanka dib markii doorashadii sanadkii 2016 uu kaga guuleystay Hillary Clinton oo ahayd madaxweyne xilligaas u tartamaysay dalka Mareykanka. Donald Trump intii uu xukunka hayay wuxuu xoogga saaray dhowr waxyaabood sida dhisidda derbiga xadka Mexico. Derbigaas oo uu kala dagaalamayay soo galootiga dalka Mareykanka, iyo sidoo kaleeto dhaqaalaha oo kor loo qaado iyo canshuurta dalka oo hoos loo dhigo marka laga reebo waxyaalaha ka imaanayo dalka dibaddiisa, kuwaas oo Donald Trump uu saarayay canshuur aad u badan maadaama halkaas uu ka cabsanayay inuu koro dhaqaalaha Shiinaha. Wuxuu si adag u wajahay soo galootiga dalka Mareykanka maadaama uu aad u nacban yahay soo galootiga dalka Mareykanka. Donald Trump ganacsade caan ah dalka Mareykanka. Ka hor inta uusan siyaasadda soo gelin, Trump wuxuu caan ku ahaa hantidiisa, gaar ahaan dhismayaasha waaweyn iyo barnaamijyada TV-yada. Waa nin caan ku ah dhanka ganacsiga ka hor siyaasadda. Musharax madaxweyne Donald Trump sanadka 2016 ilaa 2020. Doorashadii 2020, Donald Trump wuxuu guuldaro kala kulmay Joe Biden, madaxweynaha haatan xilka ka sii degi raba. Wadamada isqaban doonaan Donald Trump. Doorashada Trump waxay u badan tahay inay keeni doonto khilaafyo cusub dhinaca siyaasadda caalamka. Waddanka ugu horeeya ee isha lagu hayo inuu Donald Trump u jeesan doono waa Shiinaha. Waa quwadda la tartamaysa dalka Mareykanka maadaama Shiinaha uu haysto quwad aad u weyn dhinaca militariga iyo dhinaca dhaqaalaha. Donald Trumpna waa nin ganacsade ah oo dhinaca dhaqaalaha ku dheereeya maadaama uusan doonaynin cid la tartanta caalamkani dalka Mareykanka. Sidaas daraaddeed, Shiinaha waxaa loo badinayaa inuu Trump uu ku wajihi doono siyaasad adag oo ka duwan midii Joe Biden uu ku wajahay dalka Shiinaha. Waxaa kaloo laga baqayaa Mareykanka inuu dagaal la galo dalka Shiinaha maadaama Shiinaha uu rabo inuu qabsado jasiiradda Taiwan ee u dhow dalka Shiinaha. Jasiiraddaasi oo mar walba sheegata inay tahay waddan madax bannaan maadaama Shiinaha uu u aqoonsan yahay inay ka tirsan tahay dhulkiisa, laakiin Mareykanka ayaa aqoonsaday inay tahay dal madax bannaan maadaama uu ballan qaaday madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping inta uusan ka degin xilka inuu soo celin doono jasiiraddaasi. Meesha labaad ee isleeyahay Donald Trump isha ayuu ku hayaa waa dagaalka u dhexeeyo Ruushka iyo Ukraine. Maadaama uu socdo dagaalkani muddo ku dhow 3 sano, Donald Trump wuxuu doonayaa inuu kala dhex dhigo Ruushka iyo Ukraine xal diblomaasiyadeed oo ah inay joojiyaan dagaalka ay wadaan. Maadaama Donald Trump loo arko inay saaxiib dhow yihiin ninka madaxda ka ah dalka Ruushka, Vladimir Putin, waxaa loo badinayaa inuu Donald Trump dhihi doono dalka Ukraine waa inaad gashaa heshiiska uu soo jeediyey dalka Ruushka, mise haddii kale dagaalkan aad kugu socda iska bixi dhaqaalaha. Taas oo ku kalifi doonta dalka Ukraine inuu isdhiibo maadaama haatan dagaalku ay la wadaan reer galbeedka iyo dalka Mareykanka oo ay bixiyaan dhaqaalaha iyo hubka.
meesha kaleeto oo uu Donald Trump isha ku hayo waa midowga NATO, kuwaasoo Donald Trump u arko inay yihiin kuwo culis ku ah dalka Mareykanka, maadaama Mareykanku uu bixiyo dhaqaalaha lagu difaacayo dalalka NATO. Haddaba Donald Trump isagu maadaama uu yahay nin ganacsado ah oo fahansan dhaqaalaha, wuxuu iska soo jari doonaa. Haddaba NATO waa inaad keentaan lacagihii laydinku difaaci lahaa, mise haddii kaleeto iska dhaciya midowga ay ku midoobeen Ruushka, Shiinaha, Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi, kuwaas oo ay aad uga baqaan dalalka reer galbeedka. Reer Yurub wadnaha ayay farta ku hayaan maadaama uu soo labtay Donald Trump, kaas oo ay u arkaan mid cadow ku ah dalalkoodii. Laakiin xukuumaddii ka horeysay Donald Trump ee Joe Biden waxay bixin jirtay lacagaha lagu difaaco dalalka reer galbeedka, laakiin Trump isagu midaas ayuu kasoo horjeedaa. Donald Trump wuxuu kale isha ku hayaa dagaalka ka socda Bariga Dhexe, kaas oo u dhexeeyo muqaawamada Falastiiniyiinta iyo guumaystaha. Dhanka kaleetana waxaa ka dagaalamayo ururada ay taageerto dalka Iiraan, kuwaas oo ka dagaalama dalalka sida Lubnaan, Ciraaq iyo Syria, kuwaas oo guumaystaha mar walba ku soo tuura gantaalo iyo diyaarado drones ah oo baaba u daaray ciidanka guumaystaha. Donald Trump maadaama isku fiican yihiin, ninka haatan ra'iisul wasaaraha ka ah dalka guumaystaha ee Netanyahu, haatan ayuu u sii sheegay Netanyahu inuu horumar fiican ka gaaro inta uusan ku soo laabanin aqalka cad ee Mareykanka bilowga 2025. Haddii uu yimaado, wuxuu ballan qaaday ama inuu guumaystaha ku taageeri doono inuu dagaalka sii wado. Haddii uu arko inuu guumaystuhu uu guulaysan rabo, wuu ku wadayaa dagaalka. Laakiin haddii uu arko inay meesha ka socoto dhaqaale burbur, dagaalkaasi wuu joojin doonaa oo wuxuu aqbali doonaa muqaawamada shuruudahoodii. Ninkani mar walba isagu wuxuu fiirsadaa dhaqaalaha halka uu ka helayo oo keliya. Damaciisa qorshaha siyaasadeed waxaa ugu weyn soo celinta soo galootiga ee dalka Mareykanka iyo dhisidda derbiga weyn ee Mexico, halkaas oo uu kala dagaalamayo soo galootiga dalka Mareykanka. Sidoo kaleeto wuxuu xooga saari doonaa amniga qaranka ee dalka Mareykanka, halkaas oo uu kala dagaalami doono dowladaha uu u arko inay khatar ku yihiin dhaqaalaha dalka Mareykanka ama kuwa la tartamayo dalka Mareykanka. Sidoo kaleeto dib u habeynta dowladaha Bariga Dhexe iyo caalamka, maadaama haatan adduunku uu marayo xaalado cabsi ah oo laga cabsi qabo dagaalka. Donald Trump wuxuu keeni doonaa siyaasad ka duwan midii Joe Biden. Wuxuu kala saari doonaa dalalka uu cadowga u arko iyo kuwa saaxiibada uu leeyahay, sida dalalka Carabta oo uu la rabo inay xiriir la sameeyaan guumaystaha ay ku abuureen Bariga Dhexe. Haddaba daawade, adigoo fiirinayo qodobadaas aynu soo sheegnay, haddaba maxay kula tahay adiga? Qaybta hoose ee kommentiyada inoogu reeb fikirkaadii muuqaalkeena maanta. Intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo bir. Haddii aad horey nala joogtayna, ha iloobin inaad muuqaalka like inoo saartid, lana wadaagtid asxaabtaada. Intaynu ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalkiisa kaleeto, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.